horta Soomaali kale eriyay xamar iyo Hargeysa kala jarayno waxa soo miran wali 60kiiba waxa socon jirtay ninkan dabagaal daadihineyn amaan tibitaati daayir ahayn dameerka abgaal buu dili dameerka abgaal ima karayo weynaya madaxweynuhu noqday Soomaa wuxuu leenayaa dadkii kale maanta hadduu hawiye doonayo inuu xamar nin ciida galaam garxashaan ma saaqa ay ku xagxagtaan hawiye Hargeysa iyo Soomaaliland meel kasta hantidooda way taalaayay ganacsigooda iyo hantidooda haddii laga waantoobi waayo haddii la oranayo arinta xal loo heli waayo waxay noqon doontaa sida lagu wado hadday shaqayn weydo وين بدل يسكرها سنين قبل عربنا ما بحيو وين برعد عيار مسلوب بحي وحويجي عطاء ديرون كذا عيار أنت عيار أنا ماشى كله هنا نقول قصتان تاني ولا بقى كذا نقول يا روبي نو بقى كذا نقول يا روبي إذا كنا أنتي نجي من هالقوة تعالى أنا ما تعير هالقوة تعالى تمرة هالكي حبابون بحق النصور يقولون بركة ورا ده قولنا الدولة هايستها دمري إيربود كل شيء من ملك كل شيء رئيس عقد ولا دليل ترى ما نكي وسير كوا هاي وشقية دل كيسي كقدومي حديد من مركان الدلال تمشي حبين ويا لأن إني ما رأسك كالي يعني اللي هاي qaar kamid ah madax dhaqameedka waayeelka waxgaradka iyo odayaasha mid kamid ah beelaha Soomaaliland ayaa sida fiinta uga qeyliyay muwaadin reer Soomaaliland oo dhul uu ku leeyahay magaalada Muqdisho sifa sharci darro loogu haysto xubnahan ayaa baaq toos u diray dowladda Soomaaliya oo garwadeenka ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh oo ay Xuseen isxigaan ninka dhulka ku haysta muwaadinka ay u hadlayaan ganacsatada iyo waxgaradka beesha uu ka soo jeedo ninka ay sheegeen inuu dhulka sifa sharci darro ku doonayo ay baaq gaar ah u direen waxaan maanta madasho isugu nimi suldaan nimayo caaqil iyo odayaalba inaanu ka hadalno arrin xamar ka taagan arrinkaas oo ah ninka la yiraahdo Cabdullaahi Xuseen Dhiblaawe oo nagu haysta meeshan aan ugu garaadsanay anna koole ragayga waaweyne gabuubi sharcigeedii oo dhan haysto haddii ay maanta dee tahay waxa horta Soomaali kale eriyay xamar iyo Hargeysa kala jarayno waxa soo miran wali 60kiiba waxa socon jirtay ninkan dabagaal daadihineyn amaan tibitaati daayir ahayn dameerka abgaal buu dili dameerka abgaal ima karayo weynaya madaxweynuhu noqday Soomaa wuxuu leenayaa dadkii kale waxaan madaxweynaha gaarsiinaynaa oo dawladdiisa gaarsiinaynaa oo reerka abgaal la gaarsiinaynaa anigoo magacayga la yiraahdo Sultaan Jaamac Cabdi Yuusuf oo raggii xamar la xoreeyay koobka ahaa عيديد سوبي كجاه ريال كان مسلم قرنينه صدق شربا أيها الويس أقول مذي مر على الكنديد بنكحرين مرنا فينا نكحرين وحوي مرك كلنا هدو بالشيء أو كسيدري إنكم إحنا نقول بالقدين إنا بقبل هذا مدة كي يقولون ليسان حد وحاصل تلكم نقولينه هل كان وحي وحكولين يديردك عيدا كان يدنكم بيعين وانو قرينا ما انتو وحي البوغر شيقنا وحوي قل كان ليدو عرب عيسى سيديتك السمدود دقنا كالقحي ولوكل تقشر عيقي سودين لهي نينك اللي هو بقنا عصبه والله لا بطان وحاجة كراتين لكي لنا القلام الله يرى هذاك إساقبان الله يرى قرحيس بان الله يرى قلت يدو مهدو ninka wasiirka Xuseen wasiirka ay idinka idin taageerayay idinka go'doomay dhulkiisii ayaa maanta ku soo hoos noqotay waxaan leeyahay ka joog oo isqabta nafsiya maalba waan helaynaa wax inta waxaan dhowrana tulimadeeni ha shaqayso dawladnimada sheeganaysa iyo dadnimadiina sheeganaysa iyo la dhalashadu ha shaqayso hadday shaqayn weydo وين بدل يسكرها سنين قبل عربنا ما بحيو وين برعد عيار مسلوب بحي waxaan maanta aan halkan ka hadlaynaa arin xamar ka taagan oo arrinkaas oo ah ninka la yiraahdo Carab Ciise Xayd Ilaahay naxariisay
ganacsada weyne koonfurta kana ahaa dhulka lagu haysto ee ku yaala xeebta Liido ninka ku haysta waxa weeye Cabdilaahi Xasan Dhiblaawo nin ganacsada oo ganacsigiisu ilaa Hargeysa ilaa Soomaaliya oo dhan meel kasta yaalo waxaanu leenahay dowladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waxaan ka maanta baaq ugu soo direynaa ama erga aanu kaaga dhahay inaad naga qabato ninka ay maayirka tiire adiga madaxaaga ku haysta dhulkayga dhulka haddaan idinka sheekeeyo Afar State-kii baa la deyray shirkadda Jiciir ninka la yidhaahdo Xuseen Maxamuud Jiciir baa deyray shirkadiisii sharcigiisii wixiisii oo dhan uu leeyahay taana saxaafadan u qaybeyna maanta hadduu hawiye doonayo inuu xamar nin ciida galaam garxashaan ma saaqa ay ku xagxagtaan hawiye Hargeysa iyo Soomaaliland meel kasta hantidooda way taalaayay ganacsigooda iyo hantidooda haddii laga waantoobi waayo haddii la odhanayo arrintaa xal loo heli waayo waxay noqon doontaa sida lagu wado maanta in Soomaaliya xal bay u baahantay meel walba wada joogtaa anigu waxaan markaa ku talinayaa beesha hawiye guud ahaan inaan laga soo qabataan ninka Cabdilaahi Xuseen Dhiblaawaha ninka ganacsada ee damaacisan ee ninka ciida gale Maxamed Geesle magaalada Mudugay in hawiye laga soo qabta oo dowladda Soomaaliya laga qabo oo waxaanu idin leenahay haddii uu ninkaasi taa laga qabo waayo waxay noqon doontaa waxaan yeelino waanu naqaanaa halkan ku fadhidaa madax dhaqameedkii ciida gale qaar ka mida kankana waa Suldaan Jaamac anna Suldaan Carab Cali Muuse ninkana waa Caaqil Jaamac labada odayna waa odayaashii mudakarka ahaa reerka markaa waxaan baaqan halkan ugu nimaan u direynaa beesha hawiyaan la garnaqsanaynaa wax naga soo garbaxdo waxaan ii sheegay ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ha joogtay horta qabiil iyo siyaasad ma laha waynu ganacsadanahayo ganacsatadu waa shayga koowaad aan xuduud balahayn aan qabyaaladna lahayn marka ninka ganacsadee leeyahay waaba Dhiblaawe taniyo Dhiblaawe ma leeyahay qofka Dhiblaawe haduu yahay dhibba ma lahayn teetana waa Dhiblaawe xawr afka ku kala duwan mar wax kale loo yaqaanaa Dhiblaawe marka waxaan ka codsanayaa ninka ku haysta ninka ganacsadaha ee isaguna ganacsaday inuu Ilaahay ka baqdo ganacsiga faraha ka qaado oo hantida ninka kale walaalkii ku haysto inuu faraha ka qaado xamar iyo maamulkeeda waxay ninba ku caayi jiray dawladdu adadu caayo olbaan haybuul marka xamar marka hore isku maana wanaagsaneyn oo meel fiican waxba noomay marahayn laakiin taa iyada dawladdu waxba fariin u farimaayo waxa fariin u faraya ganacsatada Soomaaliyeed ee meel kasta joogta ee xamar joogta ee hawiya inay runtii ninka ganacsadaha Dhiblaawo la yiraahdo inay runtii arrinka galaan ee ninka ganacsadaha meeshiisa hantidiisa lagu haysto ay ka qabtaan qabiil ahaan hadduu dawlad fuulayana anigu isma lihiin ganacsado abgaaraan hawiyo Soomaali baa nin kale isaaqa ku haysta halkaas marihii mara halkii xabaalun ba xagga loo soo wareego marka horeba qolada dawladda haysataa mid airport ku dishay iyo mid meel kale ku dishay reesaaqda waa la dilayay toloma ninkii wasiirka u hayo u shaqeeyay dalkiisa ka gadoobay haddii mid markaana dilaan meesha waxba inoo yeelaan inay reerska kaalayaan leeyahay marka waxaan mar labaad ugu baaqaya inay joojiyaan hantida la isku qabsanayo hantidu waxyaabo barmagidada weey ee Soomaali meel kasta u taala nin kasta ganacsado Soomaali meel kasta ganacsi u kulay Soomaalidu waxa la yiri berigi hore deegaanka kala qaadi jireen loo orgeyn jiray waxa weeye la isu celin jiray imkana dhulka la kala qaado waxa weeye meeshu dawaa caasimad cid waliba caalamka oo dhan baa ku leh Arab baa ku leh gaala ku leh Soomaali oo dhan baa ku leh waxa weeye hadda dhulka yaga inta yara aan meesha ku lahayn ugu qabsataan nin waliba geegan ugu ciyaaru leeyahay nin waliba geegan ugu ciyaaru leeyahay
idinkana hantidigiinu halkan way taallaa annagana tayadu halkaa way taallaa marka arrinkaa wax ka qabtaa kanuu maaha wax kastoo foolxun oo dhexdiinna yaalla waxa weeye sidii nimankii boola burde ee ninka intoo lagu agdilay ninka ganacsadaha ee gaadhiga watay meydkiisa iyadoo la soo gaadhin dul dhigay iska qabta arrimaha foosha xun leh